cutubka 7 kaydinta kumeel gaarka ah ee meydka iyada oo ay musiibadu inta badan ka baaxad weyn tahay awoodda jawaab celinta inta badan waxaa lagama maarmaan ah in meydadka si kumeel gaar ah loo kaydiyo inta la sugayo aqoonsiga iyo ku wareejinta qoyska kaydintan waa in loo sameeyaa si xushmad leh oo degdeg ah gaar ahaan cimilada kulul si loo xafido oo loo dhowro meydadka sidoo kalena loo hagaajiyo fursadaha aqoonsiga habka kaydintu waxa uu ka bilaabmaa samaynta meel meydadka la dhigo ama meel meydadka la dhigo oo kumeel gaar ah oo leh kayd qaboojiye oo ku filan oo sugan meyd kasta ama qayb kasta oo ka mida meydka waa in lagu xiraa bacda meydka ama walxaha kale ee meydka lagu rido oo wata sumadda gaarka ah oo ku dul qoran jaan yar oo aan biyaha gudbinaynin oo xargo fiilo lagula dhejiyey meydka iyo bacda meydka uu ku jiro diiwaangelinta isu gudbinta haynta meydka waa muhiim meelaha meydka lagu kaydiyo oo leh qaanado ku habboon ayaa la door bidayaa kaydinta iyo heerkulka ugu fiican ee xafidaadda meydka oo ah 2 ilaa 4 digrii centigrade ayaa had iyo jeer la tixgeliyaa barafka iyo barafka qalalan labaduba waa dhibaato la xiriirta walaacyada badbaadada suurtagalka ah sidaas darteed waa in keliya loo isticmaalo halka ugu dambeeya marka aan lahayn qaboojiye waa in la helaa jawi qabow oo dib u dhigaya baabi'idda meydka ugu dambayn waxaa jira tilmaamo gaar ah oo loogu talagalay aaska kumeel gaarka ah taas oo ah doorasho wanaagsan oo wakhti dheer ah marka aysan ka hor imaanaynin caadooyinka dhaqameed xusuusnow had iyo jeer inaad meydka u kaydisid si sharaf leh iyo qaab u horseedi doona aqoonsi wakhtiyaysan oo lagu kalsoonaan karo oo ay khubaro sameeyaan